بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم kusoo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadla insha allah darsiga if else and nested if statement maxay kala yihiin sidee loo isticmaalaa iyo example ku saabsan iyada oo kooda if statement program walba ama language walba waa loo isticmaalaa waa muhiim waa laf dhabarta programinta ka mid tahay if iyo luubabka iyo waxaas oo dhan la-aantood programs aad ku qorto way adag tahay inuu yahay programka wax yaroo markaas waxaan soo muujinaya uu yahay mahay haddaad program stebyo kala duwan qaadanayo yahay waa laazim inaad if ku dhex aragto programkaas ifta tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa markii aad programinayso waxyaabo inaad kala socdo xaalado kala duwan inaad programka kusoo bandhigto waa if iyo else la adeegsadaa nested if statementina waa if kale la dhexgeliyey markaad if hadduu sidan wax noqdo haddana hadduu sidan wax noqdo aad rabta inaad tiraahdo waan arki doonaa example badanna waa ka arki doonaa insha allah ama tusaalayaal badan ilaahay idankii aan isla fiirino examplekan ugu horeeyo examplekan wuxuu leeyahay insha allah waxaan rabaa inaan algorithmka kooda hore sida loo qoro kadibna flowchartka aan samayno kadibna codekii markaas aan qorno intaas muhiimada ugu weynaa mar walba oo qof uu wax programinayo waxa la rabaa intaas step inuu maro si ay kugu fududaato inaad codeka qorto kooda hore inaad samayso flowchartka ama designka ama qaabaynta sida codekaaga uu u socon doono aad qorto kadibna haddana algorithmka aad qorto algorithmkaas markaad qorto kadib aad u bedesho code way kuu fududaanaysaa si dhaqsaha oo fudud markaas koodka ku qoraysaa examplekan wuxuu kaa rabaa ama ku weydiinayaa inaad qorto algorithm xadidaysa arday darajadiisa sheegaysana haddii uu baasay iyo haddii uu dhacay darajada ugu dambeysana waxaa laga xisaabinayaa celceliska 4 imtixaan darajo oo ardaygaas uu qaatay isla fiirino marka flowchart see u qoraysaa marka hadalkan lagu sheegay kowda hore marka flowchart qoraysa waxaa laga bilaabaa wuxuu leeyahay start point iyo end point meeshaad ka bilaabayso iyo meeshaad ku dhamaynayso uu leeyahay bilowga markaad bilaabayso marka waxaad samaynaysaa kowda hore waxaad qoraysaa startkii si hadduu qofka ama koodkan raba inuu raaco ama fiiriyo ama ogaado uu u fahmo waxan say u socdaan marka wuxuu ka bilaabanayaa start kadib waxaa ku xigto annaga waxaa naloo sheegay in la rabo 4 imtixaan oo ardaygaas uu qaatay in lasoo saaro inuu ardaygani baasay markii celceliskooda la sameeyo inuu baasay inuu dhaco lasoo sheego kowda hore maxaad samaynaysaa start kadib waxaad helaysaa 4 maado ama macalinkii ha geliyo ama ardaygii naftirkiisa ha geliyo 4 maado markaad basho kadib waxaad samaynaysaa waxaad isbarbar dhigaysaa markaa ood celceliskii qaybintii ku samayso ood u qaybiso waxaad fiirinaysaa marka gradekaas ama markii aad u qaybisay 4 maado 4 aad u qaybisay celceliskii kuu soo baxay ma ka yaryahay 50 haddii uu ka yaryahay 50 waxay noqonaysaa marka in ardaygana tiraahdo wuu dhacay markaasna aad barnaamijkii joojiso haddii uu ka weyn yahay 50na oo nooc ay noqotona aad markaas dhahdo ardaygii wuu baasay kadibna joojiso barnaamijka okay haddaan u inimaano marka qaybta kale ah algorithmka seen u qoraya iyadana algorithmka iyadu waa nooc sidii koodkii shabaha laakiin si iska caadi ah oo u dhow sida xisaabtii oo kale taad u qoraysaa oonan u baahnayn sidii koodkii waxyaabihii looga baahnayo tafaasiishii dheerayd ee zaidka ahayd aad ku qorto algorithmka waa muhiim kood markii la dhaho ay kood walba oo adduunkan la sameeyo algorithm buu leeyahay algorithmkaasaad dejinaysaa koodka waa isagii oo implementationkii ama fulintii laakiin algorithmka markaad qorto ay qof oo programming yaqaan uu qori karaa algorithmkaas koodkeeda okay annaga maxaan rabnaa marka tusaalihii waxaana la yiri waxaa qorta algorithm xadidaysa arday darajadiisa sheegaysana haddii uu baasay iyo haddii uu dhacay darajada ugu dambeysana waxaa laga xisaabinayaa la yiri celceliska 4 imtixaan darajo okay kow maxaan samaynayaa aniga nafsi sidii aan samaynayo kale stepka ugu horeeyo maxaan soo qaadanaya inputyadii waa inputka koowaad ee M1 M2 M3 M4 maadadii koowaad maadada labaad maadada saddexaad maadada afraad ama marka koowaad iyo labaad saddexaad afraad markaan kuwaas hoos aan ka soo qaato userka ama ay shakhsi oo markaas
systemkaas ama programkaas ama koodkaas raba inuu isticmaalo. Kadib maxaan samaynayaa stepka labaadan u gudbaya. Stepka labaad waxaan samaynayaa gradekan baan waxaan rabaa aniga inaan ku store gareeyo ama ku kaydiyo M1, M2, M3, M4 oo loo qaybiyey 4. celcelis wax markaa soo saaraysid waa wixii oo la isku dardaray oo loo qaybiyey tirada uu yahay isaga. Marka waxaan ku kaydinayaa grade. Stepka saddexaad maxaan samaynayaa marka isaga? Waxaan marka hadda bilaabayaa marka inaan kala soco oo fiiriyo ardaygan ma baasay mase ma dhacay. If taasaan soo qaadanaya marka. If gradeka haddii uu kor yahay ka yar yahay 50, then maxaan samaynayaa marka? Waxaan soo printer garaynaya ama soo daabacaya ama qofka usoo bandhigaya fail uu dhacay. Haddii kale uu ka weyn yahay, yani hadda laguma tusinayo in maxay haddana grade uu ka weyn yahay 50, laakiin else haddaad tiraahdo systemka ama computerka wuxuu fahmaya ama koodkan aad qorayso ama waxaan aad ku rangaraynayso koodka wuxuu fahmayaa in ay tahay tan cagsigeeda oo ah gradeka hadduu ka weyn yahay 50. maxaan printer garaynaya marka isagana baas. intaas waxaan ku dhameeyey marka oon ku joojiyey if statement programkii algorithmkiisi saasaan ku dhameeyey oon ku qoray. Kadib maxaan u gudbayaa marka koodkii iyo qoraalkii algorithmkanaad warqad ku qoranaysaa oo ama meel ku garab yaalla 2 minutes marka waxaad ku qoraysaa koodkii ay language ka rabtid, luuqadaa rabto, Java ha noqoto, Python ha noqoto ama C ha noqoto, C++, ay luuqad adi markaa kuu fudud baad ku qoraysaa. Saan ani marka algorithmkan aan kood ugu bedelo, waxaad isticmaali kartaa ay editor midkaa rabtaa isticmaali kartaa. waxyaabahan lagu programiyo lagu qoro koodadka midkaad rabto, ama ha noqdo VSC midka la yidhaahdo Visual Studio Code ama IJ Intelligent IDEA Community midka dhahan, ama Eclipse midkaa rabta adig aad isleedahay aad martaax ku tahay ama aad fahmayso waad isticmaali kartaa. ani waxaan isticmaalayaa IJ kaasaan is-iri xoogaa wuu ka yar roon yahay kan kale. inta badan Eclipse waan isticmaali jiray, laakiin kanaan is-iri xoogaa wuu dhaamaa. waxyaabo badanoo waxay kusoo daraan kuu fududaynaya ama xataa designkiisa kore iyo xoogaa waxaa is leedahay wuu ka yar fiican yahay. waxaan rabaa marka aniga inaan koodka bilaabo. koodka markaad bilaabayso Java, ani waxaan rabaa hadda inaan Java ku qoro, haddana Python ku qoro. C-na waan fiirinayaa haddii aan arko in loo baahan yahay ama waqti aan u helna isaga. Okay, Java markaad qorayso waxaan u malaynayaa kalaasyo badan oo kalena waa kaga soo hadlay videoyo kale. waxaad u baahan tahay inaad kowda hore aad class abuurtood samayso. haddaadan class samaynin ma soo bandhigi kartid wixii aad rabtay ama koodkii ma kuu shaqaynayo. mathalan hadda haddaan dhaho system oon is iraahdo aad rangaraysid, saad u jeedo meeshaan iyo ma rangarays maayo. haddaan iraahdo xataa activeba maba ahaba. wuxuu u baahan yahay inaad u samayso class, kadib aad main methodkii si aad marka u rangarayso waxaad rabto si u shaqeeyo. waa sida ayaga Java virtual machinekooda uu u set up garaysan yahay ama u dhisan yahay. xaalada waa laga yaabaa classka markaad samayso kadib aad rangarayn karto koodka, laakiin laazim waa inuu class yahay oo class aad create garaysa. meesha ay sida Python oo kale aadan u baahnayn oo cala tool aad u printer garayn karta ama aad u rangarayn karto koodkaad rabto. Okay, marka waxaan samaynaynaa marka classkii aan create garaynaya. intaanan classka qoritaankiisa bilaabin bal wax yar aan tusaaleyno class muxuu yahay. classka wuxuu yahay oo sidiisa programminta la isticmaalo waa sida fasalada iskoolka oo kale. fasalka waxaa ku jira arday. ardaydaas waxay ka dhigan yihiin methodyada aad samaynayso ama functionada aad ku dhex samaynayso classkaas. arday walba shaqada uu qabanayana waxay ka dhigan tahay objectiga ama waxyaabaha uu markaas shaqo ah oo loo diray ardaygaas inuu qabto. saasay u kala duwan yihiin. marka classku waa wareegi kore, gudihiisana waxaa ku jira methodyo ama function oo loogu talagalay inay wax qabtaan. Okay, bal classkii aan samayno Java classkiisa. Java classkeeda waxaa loo qoraa sidan class, kadib magacii classka markaa qoraysid magaciista standard uu leeyahay iyo nidaamyo loo qoro oo marka magaca uu kooda hore ka bilaabanayo inuu capital noqdo. marka waxaan leeyahay ani if statement aan rabaa inaan bixiyo waa if oo capital ft
statement. Classka markaa samaysa marka class walba wuxuu leeyahay main method. Main methodkaas waa midka aad functionadii ama waxyaabihii kalood soo samaysay oo dhan aad ku rangarayn doonto. isaga dhexdiisa waad ka dhigan kartaa koodkaaga oo dhan waa ku dhex qori kartaa, kadib waad ku rangarayn kartaa. Okay. Main methodka see loo qoraa? waxaa loo qoraa sidan: public static void iyo main oo magaciiya, kadib laba qows string. dadka noocyo kala duwan bay u qoraan, laakiin sidanaa jeclahay inaan u qoro. sidan u qorto waxaa hadda diyaarsatay marka classkii iyo main methodkii waa qortay. waad samayn kartaa koodkaagoo dhan inaad inta ku qorto, laakiin aniga waxaan ka jeclahay inay si ay wixii kuugu nidaamsanaadaan. wax kalena looma sameynin classkan iyo methodyadan. waxaa loogu talagalay koodka inuu ku nidaamsanaado, uunan iskaga kaa dhex qasmin, oo si professionala ama kood la fahmi karo oo qof walba markuu arka fahmi karo uu noqdo. haddaa wixii oo dhan hal meelo ku wada qorto, noocan ma waxay noqonaysaa inay yacni uu qofkii ku adkaatay inuu fahmo ilaa adigii u sharaxdo. laanna kambaniyaal markaa u shaqaynayso koodadka intaasoo qof baa iskaga dabamaraysa. kuwaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo, kuwaa laga yaabaa inuu just uu rangarayo koodka, inuu testi garayo bas oo shaqadiisa tahay, uu fiirayo wixii ka khaldan iyo waxaasoo dhan. marka si loo fahmo, marka waxaa la rabaa inaad waxaagii nidaamso. marka ani waxaan create garaynayaa ama abuurayaa method kale ama function kale oon rabo inaan ardaygaas darajadiisi ku qoro. functionkaas muxuu yahay marka? laba mid ba u qori kartaa. coding haddii la yidhaahdo waa la dhigayaa, waa wax aad u baahan in aad loo gudagalo. hadda mathalan markaan rabo inaan qoro new method ama new function, markaan rabo inaan qoro methodkii, haddaan rabo inaan sameeyo, seen u samaynaya laba noocba wuu yahay. inaad rabto inaad ka dhigto same kan aad haysato mainka waa static, asagana inaad static ka dhigto, iyo inaad normal u isticmaasho asaga magaciisa keliya iyo typeka nooca uu yahay methodkaaga. kadibna markaad meeshaas aad rabto inaad ku qorto inside mainka, markaad rabto inaad ku qortona aad object u samayso, kadib objectigaas aad markaasayta methodkaaga ku rangaraysa. labada tusaaleba waa arkaynaa. marka hore waxaan fiirinaynaa bal qaabka statiga oo same like kan aan haysano kale aan u qorno. waxaan leeyahay static, marka waxaan qoraya, aan ku xijinayaa nooca aan rabo inuu noqdo methodkayga. waxay noqdaan integer, waxaad ka dhigi kartaa double, float, midkaa rabtid. laakiin waxaan rabaa inaan ka dhigo, inta badan markaad rabta inaad wax soo celiso oo methodkaaga uu natiijo kala keeno ama wax ka soo baxaan, waa waxaa la sameeyaa integer iyo waxyaabahaas laga dhigaa. laakiin ani waxba ma rabo inuu ii soo celiyo. marka haddaad rabto inuusan waxba soo celin, waxaad leedahay void. lama rabo functionkan inuu natiijo ama wax ka soo baxo, ama xisaab ama natiijo kale uu ka soo baxo. markaasaad wax kale kusii samaynayso. marka ani laakiin ma rabo inuu wax soo saaro. waxaan leeyahay marka if else, magacaanaan u bixinaya else. okay. markaan functionka saan u sameeyo, waxaan fiirinayaa marka algorithmkii maxay ahayd. algorithmka kowda ugu horeysa waxa laga raba waxaa waaye waa input inaan sameeyo 4 maado ama 4 imtixaan. sidaan u samaynayaa marka? okay. aniga waxa ugu horeeyaan raba inaan sameeyo waxay tahay inaan u qoro, u daabaco ama u qoro message ama fariin tusinaysa qofka waxa looga baahan yahay systemka ama koodkaaga isticmaalaya. marka waxaan rabaa inaan u bandhigo message u sheegaya inuu ku qoro 4 maado ama 4 imtixaan ee uu galay. waxaan leeyahay system. markaad rabto inaad shaashada wax kusoo bandhigtay java, waxaa la isticmaalaa qaabkan. kuwa kale aad bay uga fudud yihiin marka loo fiiriyo java, kuwa c ama python ama koodadka kale. inta badan waxaa loo isticmaalaa wax yar ama print f ama print oo kale. laakiin iyada waxay u baahan tahay inaad intaanoo dhan wada qorto si aad message ugu soo bandhigto shaashadda. marka waxaan leeyahay marka waa inaad double codekan ama labadan noqto mid walba goonida ah
labada nuqda inaad ku dhex qorto messagekaaga. haddii aadan ku dhex qorin wuxuu kusoo saaraya khalad ama error. marka waxaan leeyahay fadlan geli farmaado imtixaankooda. waxaan rabaa markii uu qoraalkan usoo baxo inuu line cusub uu wixiisa ku qoro. markaad rabto inaad samayso taasoo kale waxaa la sameeyaa backslash n kan waxay ka dhigan tahay wixii qoraalkan ka dambeeyo ha ka bilowdaan sadar cusub. marka haddaan matalan fiirino si uu usoo bandhigayo ka dhamaysa methodkan qoraalkiisa oo shaqadaada dhamaysato, waxaa la rabaa ina main methodka inta kusoo laabatid marka aad ku qorto magacii methodkaagi si uu u shaqeeyo oo wixii aad markaa rabtay uu u fuliyo. marka meeshan main methodka waxaan ku qoraya aniga methodkii aan samaystay. muxuu ahaa magaciisa? wuxuu ahaa if else statement. waa ujeeda asaaba kusoo bandhigayo. marka saas ugu qorto wax kalood u baahan tahay maleh oo ah on inaad rangarayso. markaan rangareeyo wuxuu ii soo saaraya wixii aan u baahnaa oo ah qoraalkaasi waa fadlan geli 4 maado imtixaankooda. qoraalkaas adu waxaad rabto ka dhigan kartaa english ka dhigo, ay waxaad rabto saad adigu fahmaysa ka dhiga. aniga muhiimadeenu waa inaan fahmi karno sida waxa loo qoro iyo sida koodka uu shaqeeyo. okay, waxaan rabaa marka hadda qofkii markaa intaa u bandhigo si qofkii uu soo qoro waxaad u baahan tahay marka inaad isticmaasho systemkan aad u sheegto in qofkan uu soo gelin karo, wax ku soo qori karo, keyboardkana laga soo qaadi karo, laguna qori karo koodkan. markaasna adiga aad ka shaqaysiiso waxaad rabta aad markaa ka dhigto koodkaaga. markaad rabta inaad qofka ama userka aad kasoo qaato qoraal, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kalaasyada ama libraryada ay Java leedahay mid ka mida, waxaana la yiraahdaa scanner. scannerkaas saad marka u isticmaasho class walba, inta badan languageyada class walba oo la sameeyey ama library uu leeyahay maxay ahayd luuqadaasi ay leedahay, waa inaad soo geliso meesha si aad u isticmaasho. marka si aan usoo gelinayo marka classkaas waxaan leeyahay import micnaheedu waa fahmaysaa, waa la soo dejinaya ama soo deji java.util. utilkan waa ujeedaa waxa hadda soo wada hoos gala, soo ma jeeda scannera hoos gala, concurrent soo hoos gasha, function, long in, waxaasoo dhan random. marka si aad haddaad rabto kulligood u isticmaasho waxaad samayn kartaa star xidigtaanaad ku qori kartaa ama kaad rabtaad marka dooran kartaa, markaasaad isticmaalaysa. hadda markaan galaaskaasaan soo geliyey meesha oo scannera waan isticmaali karaa. marka koodkayga waan ku isticmaalaya. saan u isticmaalaya, waxaan la rabaa markaad isticmaalaysa class inaad object samayso. objectigaas aad samaysay waad hadhow isticmaalaysaa oo waxaad rabto oo shaqooyina ku qabanaysaa. haddaadan objectigaas samaynin, waa sidaan sheegayo kale, waa arday. classku waa fasalkii, ardaydii baa ku jirta. objectigu waa shaqadii loo diraayay ardayga inuu qabto. marka waa inaad samayso objectigaas samayso. haddaadan samaynin ma ku shaqayn karti classkaas oo aad rabtay inaad isticmaasho. objectiga markaasaan uu create garayn karaa. waxaan leeyahay classka magaciisa scanner, magacaad rabtaad u baxsanaysa. ani waxaan leeyahay input, ad waxaad rabto ku magacaabo. kadib waxaan leeyahay haddana new, leanna waa objecti cusub. waxaad samaynayso new scanner. markaas maxaan leeyahay meeshan system dot in. nidaamkaana loo qoraa markaad rabto inaad wax userka aad data ka soo qaado. waa nidaamkan waa inaad raacdo. marka java, luuqada java markaad rabto inaad userka wax ka soo qaado ama data ama waxay rabtaba ha noqote. okay, markaan weydiiyey inuu qofka userka ama qofkii soo gelinaya datada computerka, markaan weydiiyey waxaan rabaa datadii uu qofkan soo gelinaya midba inta soo qaado inaan save garayo, meel ku save garayo. saan markaa haddana anigii programka ama koodkii aan ugu isticmaalo. saan u samaynaya, ka horta waxaad fiirinaysaa datada aad rabto inaad soo geliso maxay tahay. ma qoraala,
ma nambara hadday nambara yihiinna maxay kala yihiin ma jajaba ma nambara caadiyaha waa inaad og tahay waxaad daatada aad rabta inaad systemkan soo geliso okay annaga waxaan rabnaa inay noqoto daatada double inay noqoto waxaan leeyahay marka double yani double waxaan u malaynayaa videoyo horaan kusoo sharaxay integer iyo double waxay kala yihiin iyo siday u kala qaybsan yihiin waxaasoo dhan double waa class ka mid a classyada java asaan rabaa inaan isticmaalo doublekan marka waxaan leeyahay maxay yihiin maadooyinkii marka 4 maado waay waxaan leeyahay marka m1 m2 m3 m4 iyo gradekii aan rabay inaan ku save gareeyo wixii kasoo baxay averagekii kasoo baxay maadooyinkan markaan averagekoodii xisaabiyey waxaan leeyahay grade markaan typekii ama noocii aan sheego maxaan laga rabaa marka inaan kulli maadooyinkan mid walba inaan ku kaydiyo wixii uu soo geliyay userka maxaan sameynaya marka waxaan leeyahay m1 ayadaan ka bilaabaya waxay lamid tahay m1 waxay lamid tahay input oo objectiga aan sameeyey ah dot next ani marka daatada aan haysta maxay tahay waa double waad dhihi kartaa next integer next waxaan oo dhan aad hadda meesha ka aragto dhan laakiin annaga nooca typeka ay daatadeena tahay maxay tahay waa double saas awgeed waa jajab saas awgeeda marka aan u dooranaya kan waa nidaamkan inaad u qorto java codekeeda java markaad isticmaalayso m2 waxaan leeyahay sidoo kale waxay la mid tahay input dot next double waa maadadii labaad ama imtixaankii labaad m3 sidoo kale iyadana input dot next double m4 input dot next double okay hadda marka waxaan ku save gareeyey mid walba oo wuxuu soo geliyey userka waxay iigu jiraan m1 m2 m3 m4 hadda marka maxaa laga rabaa marka qaybtii labaad stepkii labaad inaan gudbo oo ah inaan m1 m2 m3 m4 u qaybiyo 4 celceliskooda markaas aan ku kaydiyo gradeka ku kaydiyo waxaan sameynaya marka waxaan leeyahay grade wuxuu la mid yahay haddaadan qawsaskan gelinin waxaa laga yaabaa inuu natiijada uu kaa khaldo marka waa inaad qaws geliso si uu u kala soco m1 m2 plus m2 plus m3 plus m4 loo qaybiyey 4 gradekii hadda waan soo saaray wixii kasoo baxo celcelisa meeshaas igu jirayaan stepka ku xiga labaad muxuu yahay stepka labaad ee ku xiga wuxuu yahay inaan isticmaalo if oo ah inaan fiiriyo bal gradekan ma ka wen yahay conton mase waa ka yaryahay waxaan leeyahay marka if qaws waa inaad geliso grade haddii gradeka uu ka yaryahay 50 then maxaa laga rabaa aniga inaan dhaho print system waa nidaam dheer waxaa ka fiican kuwa kale system out print markaas maxaan leeyahay fail else haddii kale else had daabacda dot out dot print bas saasaad ku dhamaysay hadda qofkii markuu soo geliyo maadadii wuxuu fiirinayaa koodka wuxuu fiirinayaa kulligooda isku dardaraya maadooyinkii wuxuu u qaybinayaa 4 oo tirada inta ay yihiin adi waa ka badin kartaa haddaad rabto 5 maado 6 maado waxaad rabtaad ka dhigi kartaa wuxuu u qaybinayaa nambarka maadadii celceliskii wuxuu ku save garaynayaa ama uu ku xarayna computerka wuxuu u shaqeeyaa sida maaha sida laga yaabo qofka insaanka uu fakirayo looma dhisin computerka wuxuu ku save garayaa wax walba oo
equal dhinacan ka xigo macnaheedu waxay tahay ku save garee meeshan. Marka meeshaas ku save garaynaya, markuu ku save garaya wuxuu fiirinaya marka statementigan uu samaynaya aan samaynay oo ah gradeka hadduu ka yar yahay 50 qofka waxaad u daabacdaa waa dhacday, hadduu ka wen yahayna waxaa u daabacdaa waad baastay. Okay, markaan fiirino ran garayno bal aan fiirino wuxuu sameeya. Okay, wuxuu ii weydiiyey fadlan geli 4 maado imtixaana. Markaas line cusub ka bilaabay waxaan leeyahay mathalan 100 50 mathalan 80 60 wuxuu yiri pass. Wuxuu sameeyey waan isku dardaray, adigaba waa xisaaban kartaa, waad fiirin kartaa haddii uu sax yahay haddii wax ka khaldan yahay. Wuu isku dardaraya, wuxuu u qaybinayaa 4, wuxuu fiirinayaa bal inuu gradekii ka wen yahay ama ka yar yahay 50. Hadduu ka yar yahay wuxuu leeyahay pass, hadduu ka yar yahay wuxuu leeyahay waa dhacday. Bal aan fiirino mid dhacda. Waxaan leeyahay mathalan 50 25 40 60 fail. Saa ujeedo waa dhacday. Hadda intan isku dardarto ood 4 u qaybiso way ka yar tahay 50. Saas awgeedu marka wuxuu soo bandhigay fail ama waa dhacday. Marka tusaalahan koodka waad u jeedaa sida uu yahay, waxaad adiga ka bedelan kartaa. Haddaan u soo laabto marka pointi oon hadaayay ka hadlayay oo ah inaad ka dhigto methodka sida uu yahay main methodka. Haddaadan ka dhigin marka maxaa samaynaysaa oo just aad tiraahdo void kadibna aad methodkiis ka qorto. Haddaan iraahdo rangare wuu iga diidaya, wuxuu leeyahay khaladkan uu ii soo saaraya. Waxaan samaynaya marka si aan ugu rangareeyo waxaan leeyahay waa inaan classkii magaciisa soo qaatoon object sameeyo, kadib objectigaas markaas kadib ku rangareeyo. Sidaan samaynaya marka waxaan leeyahay classkayga magaciisa muxuu yahay waa if statement. wuxuu lamid yahay magac oo objectiga. Waxaan leeyahay mathalan waxaad rabto output iska dheh, wuxuu lamid yahay new if statement. Okay, marka objectigana waxaan leeyahay marka output dot. Hadda marka waa inuu ii rangareeya. Marka hadda soo ma jeedid clear wax khalada ima tusinaya. Hadda bal rangare waa shaqeeyey. Waxaan leeyahay marka 100 50 pass. Labadaba midkii kuu fudud adiga ood is leedahay waad fahmaysaa waad ku samaysan kartaa. Haddaad rabin inaad static mar walba ku darto every method aad samayso, haddaadan rabin inaad static ku darto saanad u samaysanaysaa. Haddaad rabto oodan lineka iyo waxaas aad rabin inaad ku dartana waxaad ka mid dhigaysaa sida uu yahay main methodka, markaana wuu kugu rangaraysmaya. Okay, bal isla fiirina tusaalahan kale isagana. Examplekan kale wuxuu leeyahay waxaa qorta algorithm iyo flowchart iyo code kaas oo xisaabinaya xididka isla egta darajada labaad roots of quadratic equation. Quadratic equation ama mucadalaat tarbiiciya waa waxaa laga rabaa inaad code samayso oo xalinaysa mucadaladaas. Codekaasaa lagaga baahan yahay. Quadratic equationka formkani u qormaan oo ah ax square plus bx plus c equal to 0. waxaa la rabaa marka inaad soo saarto x qiimaheeda markay tahay quadratic ama macadala tarbiiciya markay tahay waxay haysataa 2 xal sida hadda tan oo kale. Labadaas xal baa waxaa la rabaa markii lagu bedelo qiimaha x inay noqoto 0. Markaad xalinayso gacan ku xalinayso foomam kala duwan baa la isticmaalaa, laakiin anaga koodka waxaan rabnaa inaan ku isticmaalno foomkan meesha ku qoran oo ah x waxay la mid tahay minus b plus or minus square root b square minus 4ac loo qaybiyey 2a. tan oo ah formulaha loo yaqaano quadratic equation formula. Saan isticmaalaynaa marka flowchartkan aan fiirina bal waxaan sameynaynaa sidii kii hore staran ka bilaabaynaa oo sheegna waxaan rabaa inaad mar walba star ka bilowdo, kadib waxaan ku xijinaynaa inputkii la rabay. waxaa la rabaa in userka laga helo 3dan input ee kale ah a b c oo qiimayaashii horgalayaasha x
kadib maxaa ku xiga oo layga rabaa inaan sameeyo waxaa la rabaa marka koodkan si xoogaa caqliyeysan buu samaynayaa waxaan rabnaa inaan sameyno anaga just partigan ee ah square rootka ah ee ka bilowda b square minus 4 ac baan waxaan rabnaa keligeed ayada inaan aan variable ama mutaqayir aan ku kaydino sida d variable d inaan ku kaydino si hadhow markaas ay noogu fududaato marka koodka markaan qorayno inaan u xisaabino x qiimaheeda markaan intaan keligeed aan d ku kaydiyo maxaa ku xiga marka waxaa iigu xigtay stevekan kale oo ah x1 baan rabaa inaan soo saaro natiijadeeda saan kusoo saaraya waxaan kusoo saarayaa minus b plus ilaa mugta labadan oo plus iyo minuska waa midna waa x1 midna waa x2 labada qiimo oo xta ay lahayd waay marka waxaan leeyahay minus b plus oo midda hore ah ddii ilaa aniga waxaan u qaatay markii hore qiimahan oo b square oo square root b square minus 4 ac waxaan u qaatay inay d tahay waxaan leeyahay d oo loo qeybiyo marka intan hoose oo ah 2 lagu dhuftay a x1 teedii waa taas x2 deediina maxay noqonaysaa iyadii oo t minuskan isticmaalay oo ah minus b minus d loo qeybiyey 2 ah x2 waa saas kadib maxaa ku xigaya waxaan soo birintar garaynaya oo soo saaraya x1 iyo x2 flow jarka saasuu noqonaya okay muxuu noqonaya marka koodkii marka meeshaas ku dhamaanaya waa intaasuu ku egyahay flow jarka maxaa marka algorithmkiisi sian u qoraya marka algorithmkii tusaalihii aan soo qaatay waxaa laiga rabaa inaan qoro quadratic equation inaan qoro kooda oo soo saaraya x1 iyo x2 ama qiimaha x step 1 maxaan sameynayaa inputkian soo qaadanaya oo a b c oo horgalayaasha x labada oo a b horgalayaasha x iyo c oo ah qiimaha kale ee constantiga ah ma numberka caadiga ah step 2 maxaan sameynayaa markaan inputka userka kasoo qaada maxaan sameynayaa waxaan xisaabinayaa d marka saan u xisaabinayaa waxaan sheegnay waxaan niri square root b lagu dhuftay b oo micnaheedu ay tahay b square laga jaray 4 a c intaasoo is wadataan waxaan ku kaydinayaa calaamadan fallaarta waxay tilmaamaysaa waxaa lagu kaydiyey d okay markaan d ku kaydiyey step 2 step 3 waxaan sameynayaa marka waxaan xisaabinayaa marka x1 kowda hore x1 waxaan leeyahay maxay la mid tahay waxaan leeyahay x1 qiimaheeda waxaan x1 tan ku kaydinayaa marka t flowchartkii waxaan kusoo aragnay oo ah minus b plus d loo qeybiyey 2a waa x1 waan ku kaydinayaa step 4 waxaan leeyahay haddana x2 qiimaheedan la rabaa inaan ku kaydiyo x2 waxaan leeyahay iyadana maxay tahay waa minus b minus d loo qeybiyey 2a qiimahan natiijadan inta iiga soo baxday waxaan ku kaydinayaa x2 step 5 maxaan sameynaya waxaan soo birintar garaynaya marka x1 iyo x2 meeshaasa wuxuu ku dhammaaday algorithmkii aan rabay inaan ka sameeyo quadratic equation marka waxaan aadaynaa marka dhankii koodka markaan rabay inaan koodka qoro galaaska magaciisii waan bedelaya magacii hore wuxuu ahaa if statement kan laakiin waxaan ka dhigayaa quadratic equation waad iska fahmi kartaa laakiin intaasaan kusoo koobaya main methodkii waan u baahanahay laakiin methodkii aniga io khaaska ahaa aan rabay inaan ku xisaabiyo tan waxaan leeyahay static void ma raba ani inuu wax soo celiyo waxaan leeyahay okay intaasaan kusoo koobaya magaca okay quadratic equation waxaan raacayaa nafsi formkii algorithmka kowdii hore maxaan rabaa inaan userka weydiiyo input sidii oo kalean u qoraya waxaa leeyahay system message baan u qorayaa userka waxaan leeyahay system output dot print fadlan adi english waa ka dhigan kartaa please enter waa dhigi kartaa laakiin aniga waxaan isku dayaa bal inaan soomaali ku qoran haddaan soomaali ku hadlayo fadlan geli
qiimayaasha A, B iyo C. mar walba backslash waxaan rabaa inuu sadar cusub ka bilaabmo. Okay, markaan userkii messagekaas u diro oon dhaho geli, waxaa laga rabaa inaan userkii bandhigo marka wixii uu gelin lahaa. Waxaan sameynaya marka nafsi sidii waxaan isticmaalaya scannerki. Waxaan leeyahay scanner objective aan create garaynaya. Scannerkan waxaan leeyahay nafsi sidii input. Adi waxaad rabtaad ka dhigan kartaa scanner, waa dhigi kartaa any name kaad rabtaad u bixin kartaa. Ani waxaan leeyahay input maadaama wax la gelinayo. Soomaali xataa waad ka dhigi kartaa haddaad rabto. Equal new scanner system dot in. Okay, objectii waan sameeyey. Waxaan rabaa marka inaan aan soo qaado wixii oon ku kaydiyo magacyo aan aniga samaystay. Magacyada muxuu yahay marka? Waxaan rabaa sida integer aan ka dhigaya kan noociisa. Waxaan leeyahay integer waa raqam saxiixa ama cadad saxiixa. Waxaan leeyahay num1, num2, num3. saddexdaas number waxaan ka rabaa userka sooma. Okay, waxaan leeyahay marka num1 wuxuu la mid yahay input dot next integer. So ma jeedid haddaay maxaan sameynayni double, laakiin kan muxuu yahay next integer. Okay, num2 equal input dot next integer. Sidoo kale ayadana hadday kala duwan yihiin oo numberka labaad uu jajab yahay waa dhigi kartaa next double. Num3 equal to input dot next integer. Okay, hadda marka saddexdii number waa soo qaaday. Waxaan rabaa marka inaan sameeyo markaan saddexdii number soo qaado kadib waxaan rabaa inaan xisaabiyo d qiimaheeda. dna maxaan niri waa inta keliya ee square rootka ku jirta inaad xisaabiso. Okay, see u xisaabinaysa marka d maadaama ay tahay root ama square root wax ka soo baxayo waxay noqon kartaa jajab soo maha. Marka waxaan leeyahay iyada double aan ka dhigaya, integer ma dhahay. Haddaad rabto kulligood waa ka wada dhigi kartaa double. m1 number 1 number 2 number 3 iyo kulligood double waa ka wada dhigi kartaa. Laakiin maxaaba ku gelinaya kulligood double ka dhig. Markaana si ayba macquul inuu qofku u baahdo inuu geliyo jajab uu geliyo. Marka intana d u dar marka waxaan leeyahay d. Okay, hadda marka maxaan u baahanahay markaan nambaradan soo geliyo ani waxaan u baahanahay d inaan xisaabiyo. Marka d waxay la mid tahay d markaan fiiriyo kan waxaan leeyahay square root b lagu dhuftay b laga jaray 4 lagu dhuftay a lagu dhuftay c intaasoo iswadatay d la mid tahay. Square rootka marka saan kusoo saaraya. Square root markaa rabto inaad java qorto waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho math function oo java ay leedahay. Saan ku isticmaalaya sidoo kale nafsi waxaad leedahay import java dot math. marka haddaad rabto street dheh oo mathkaas wuxuu yahay oo dhan marka maxaan leeyahay marka lady waxay la mid tahay math square root oo objectigaas waxaan kasii isticmaalaya square root. Square rootka marka muxuu yahay waxaan rabaa inaan geliyo square root waa b lagu dhuftay. waxaad samayn kartaaba a iyo b iyo c. waxaad tirahdaa a ka dhig b iyo c si aadba u fahantaba waxaaba number ugu bixinaysaa. Okay, kulligood si ay waadix u noqdaan a b c si aad u fahanta. Okay, waxaan leeyahay b lagu dhuftay b markaad samaynayso
waxaa ka fiican inaad qows sii gashato say u kala soconaadaan. Laga jaray 4 times a times c. iyo waxay la mid tahay intaas. Square rootkaas intii square rootka keliyaan gooni uga soo bixiyey. Hadda marka waxaan rabaa inaan xisaabiyo x1. x1 saan u xisaabinaya algorithmka waxay ahayd waxaan leeyahay minus b plus d loo qeybiye 2 times a. leeyahay x1. Okay, x1 ayadu marka weli ma tacriifinin ama waxay tahay ma sheegin, ma declare garaynin. waxaan leeyahay x1 ayadana double aan leeyahay maadaama ay jajab noqon karto x2. marka x1 markaan xisaabiyo waxaan leeyahay x1 waxay la mid tahay waxaan niri waa minus b plus d oo loo qaybiyey 2 times a. x2na waxay la mid tahay nafsi sidii oo kale ayadii aad soo koobiyeysanaysaa. hadaad rabto type gare. inta badan waxaa ku fiican tahay inaad type garayso. ani laakiin time baan ilaalinaya. 2 tana minus ka dhig. intaasay ku kala duwan yihiin labada. Okay, markaan dhameeyo marka maxaa layga rabaa oo algorithmka leeyahay. wuxuu leeyahay just print x1 and x2. waxaan leeyahay marka system out dot print x1. waxaan leeyahay marka x1 equal x1. sideeda markaad wax rabto inaad isku qabato string iyo variable waxaa isticmaalaysaa calaamada plus. java qanuunkeeda waa saas. markaa rabto hadda x1 waa string. waxaan rabaa ani inay usoo baxdo qoraal ahaan oo tan midigtan xigta bidixda xigta. tan x1 tan kalena waxaan rabaa inay matasho qiimihii kasoo baxay meeshaas. okay, haddana waxaan leeyahay islas ayadii oo x2 ya x2. great. maxaa markaa haray koodka waxba maarin. wuxuu ku dambeeyey step 5. okay, markaan gadaal u raaco maxaan sameeyey ani waxaan create gareeyey classka magaciisa waa quadratic. main methodkii haddana method iyo khaasaan sameeyey. methodkii baan ani wixii aan rabay dhan ku samaystay. kadib marka waa inaan inta ku qeexdo. haddana haddaada inta ku qorin masoo bandhig maayo, masoo daahirayaan. marka waa inaan qoro magaciisa on dhaho quadratic equation. okay, marka bal aan ran garayno fiirino. saddexdii number uu iga rabaa. waxaan leeyahay 1 mathalan 4 2. wuxuu soo saaray x1 inay lama tahay negative 0.50 long number. waa round garayn kartaa laakiin round garaynta waa inaad haddana function kale import class kale soo geliso. marka ma rabna inaan detailkaas hadda galno laakiin sidan inta badan adi xataa naftirkaaga dad rabto gacantaada waa ku round garaysan kartaa markii aad natiijada hesho. aan fiirina haddana mar kale waxaan gelinayaa bal number uu soo saarayo x iyo x1 error. bal aan fiirin. soo ma jeed meeshan hadda labadan wuu isku dhaweeyey. marka si uusan isugu dhaweynin meeshan waxaan rabaa inaan kala fogeeyo. siaan u kala fogeynaya koodkiyaa ku laabanaya. aan fiirinaya marka kan space haddaan dhaho inta uu ka fogeynaya marka kan kale. okay, bal raan garee mar kale. 10 15 26 kaas. marka wuxuu soo saaraya meeshan nan oo micnaheedu tahay not a number. qofka mararka qaar waxa laga yaaba inuu ku yaro wareero waayo
maxay tahay waxaan ood fahmi weydo si aad u fahamto marka adi koodkaaga waxaa ku samayn kartaa waxaad xadidi kartaa waxaan inuu uu u leeyahay why sababta uu leeyahay not a number muxuu u leeyahay number ma ahan muxuu leeyahay adigu waa xadidi kartaa sababta keenaysa horta waxay tahay marka square rootkan negative number uu noqdo natiijadii meeshan kasoo baxday markii b la square gareeyey oo laga jaray 4 a c marka laga jaro hadday natiijadeeda negative noqoto sideedaba waxaa soo baxo error waa markii xisaab ahaan la xisaabinayo nooc loo xisaabiyay leedahay oo i loogu magacaabo minus i ama plus i ama whatever waxay tahay laakiin calculatorka iyo kombyuutarada iyo ilaa adigii naftirkaaga aad si diiba ugu tacriifisa maahane ma keenayo natiijadii waxay tahay ma garan karo markaas wuxuu ku leeyahay not a number ma ani marka si aan uga hortago inuusan saas dhihin oon u fahmo sababta keentay inuu nan uu dhaho waa inaan ani marka waxaan rabaa inaan qoro kood yar oo qofka tusinayo sababta ay tahay waxaas calculatorada way leeyihin calculatorada qaara markaa ku qorto waxay dhahayaan false micnaheedu tahay numberka rootkiiba wuxuu noqday negative si aan u samaynaya marka aniga waxaan u isticmaalaya waxaan samaynaya marka if statement aan qoraya marka if statementigaas waxay ii kala soocaysaa d hadday tahay nan ama hadday tahay number hadday nan tahay waxaan leeyahay waxaa soo printer garaysaa false haddii ay number caadiya tahayna natiijada caadiga ii soo saar siaan u kala saaraya marka waxaan leeyahay if qows waa inaad furto mar walba if statement aad samaynayso waa inaad qows furto statementigaas qowskaas dhexdiisa waa inaad statementiga ku qorto waxaan isticmaalaya classkan double dot is nan somaya is nan d waa ddaas hadday tahay nan hadday tahay ama nan tahay maxaa samaysaa marka messagekan soo daahiray dot print leeyahay false inta badan waa say calculatorada isticmaalaan haddii kale aysan saas ahaynna waxaan leeyahay else kuwaan kale marka ii rangare marka koodkaas hadda maxaa iri aniga waxaa iri dda hadday tahay naa waxaad samaysaa waxaad soo printer garaysaa ama soo daabacdaa false haddii kale rangare kuwan okay bal aan fiirino okay waxaa ka maqan meeshan wuxuu noo sheegayaa inuu ka maqan yahay qows xiran muxuu yahay kan waa kan laakiin kankiisii xirnaanshaha ahaa ka maqan marka waa inaan ku daro okay kood walba markaaad rangarayso waa inaad fiiriso waxa uu kuu sheegayo si aad u garato waxa kaa khaldan okay rangare okay meeshaan waad aragtaa elsigan si khalada u qoray markaas wuxuu leeyahay java not a statement marka meeshaan statement uma eg waa isdaba mariyey marka waa inaan sax else okay hadduu marka shaqaynaya bismillah okay saddexdii number uu weydiiyey waxaan leeyahay number weyn geli si uu u noqdo false soo ma jeedi wuxuu soo bixiyey false meeshii uu iisoo saaraya x waxay la mid tahay naa ama x2 waxay la mid tahay sidoo kale marka hadda laakiin wuxuu iisoo saaray false haddaan number caadiya geliyana ama si number macquulo oo uu leeyahay x qiima ay leedahay haddaan geliyo 25 maybe 5 wuxuu soo saaraya qiimihii kan x waxay la mid tahay 0.2 iyo waxay la mid tahay minus 24 haddaad qiimayaashan x1 aad ku bedesho macadalada oo horgalaheedu yahay quadratic equation oo horgalaheedu yahay x square horgalaheedu yahay 1 xna horgalaheedu yahay 25
qiimaha constantigana 5 yahay haddaa ku bedesho x qiimayaashan waa inay kusoo baxdo 0 haddayna 0 kusoo bixin waxbaa khaldan laakiin haddaad hadda ku fiiriso waxa kusoo baxaysa 0 markaad u baahan tahay inaad kood ka qorto quadratic equation oodna u baahnayn inaad gacan ku calculate garayso ama gacan ku xisaabiso waxaad samaynaysaa sidan koodkaanaad qoranaysaa wax walba oo ku saabsan macadalaad tarbiici oo dhan wuu kaaga shaqaynaya natiijadeedana wuu ku siinayaa haddaynan xal lahayn wuxuu ku siinayaa false calculatorkan caadiga scientific ah ee weliba nooca ugu dambeeya saasuu sameeyaa keliya markaad isticmaalaysa softwarada aad loo horumariyay keliya ku siinaya qiimayaasha oo waxaa lagu magacaabaa imaginary value ama qiimayaasha khayaaliga ah qiimayaashaas khayaaliga ah imaa inaad xisaab gacana kusoo saarto iyo imaa inaad softwaradaas aadka loo horumariyay aad isticmaalayso unbaad qiimaha x kusoo saari kartaa waxaa jirta dariiqo kale ama waddo kale oo sidan hadda labada system output aan sameeyey dariiqo kale ka duwan aad samayn karto oo kulligoodba hal line keliya aad ka dhigi karto waa see marka waxaan leeyahay system output dot out print markaas waxaa soo qoraya kow x1 waxay la mid tahay plus x1 haddana waxaad leedahay plus furaysaa double quotation mark baad samaynaysaa markaas haddana waxaad ku qoraysaa x2 ay la mid tahay plus x2 tan intii space yar u dhexaysiisay ay labadooda u kala socnaadaan saas markaa samaysa hadda waa ka maarmaysaa marka kuwan oo dhan okay number xaqiiqi aan fiirino 1 4 2 samajid isku sii iisoo saaraysaa sidan haddaad rabto waa qoran kartaa haddaad rabtana halkan line waa ka dhigan kartaa laakiin sida officialka ama fiican ee quruxda badan waa inaad hal line keliya ka dhigto labadooda waad ka dhigan kartaa markaad rabto laakiin inaad koodkaaga uu qurux badnaado oo si form qurux badan u ekaado sidan kale loo qortaa intaad yarayn karto wax walba oo ku saabsan koodkaaga waa inaad yarayso mid rabaa inaan wax yar kuu sheego meeshaan markaad rabto inaad ka dhigto double variablada aad rabto inuu userka soo geliyo haddii aad dhahdo double aad meeshaana ka dhigto next integer wuu shaqaynayaa normally laakiin fiiri suu noqonayo markii uu userka uu soo geliyo jajab uu soo geliyo maxaa dhacaya bal aan fiirino hadda marka uu userka geliyo 1.2 meeshaas maxaa noqonaya fiiri wuxuu ku siinayaa waxaan messagekaanu kusoo qoraya marka laba mid waad samayn kartaa ina exception samayso oo ka soo reebto iyo inaad sideedaba aadanba qaadaninba next integer aada qaadan ee dhahda next double waxaad u baahan tahay waa double aadanba marna aadan userka weydiinin inuu just integer labadaba kana kugu shaqaynayo next doublekan wuxuu kugu shaqaynaya hadduu integer ahaan usoo geliya iyo hadduu double usoo geliyaba waan isla arkayna hada markaasaan ka dhigo fiiri marka hadda aan integer geliyey iyo haddaan geliyey labadaba ima siinayo hadda exceptionkan ama messagekaas sidii u shaqaynaya haddaan hadda geliyo haddana jajab 1.2 soo ujeeda u shaqaynaya laana meesha wixii looga baahnaya wuxuu yahay inuu noqdo double noqdo ama jajab noqdo marka mar walba ood gelinayso data aad ka soo qaadayso userka waa inay islahaadaan waxa aad ka dalbaysa userka inuu soo geliyo iyo
meeshan markaad qeexayso variabladaada inay islahaadaan. aadan isla haysiinin ood noocan oo kalena aad u samaynayso, waa inaad exception samayso. waana arki doonaa mar video waa ka samayn doonaa sida loo sameeyo exceptionada iyo waxyaabahaas. bal tusaalahan kale aan isna isla fiirino oo ah midka ugu dambeeya, isagana waxaan rabaa inaan ku sharaxo nested if statement. yacni maxay tahay if statementidan isdhexgalgalaysa maxay tahay? tusaalahan ama examplekan wuxuu ku leeyahay waxaad soo saartaa numberka ugu yar ee 3 number. waxaan la rabaa 3daas number in isticmaalaha userka soo geliya systemka. qof userka waxaad rabtaa inuu 3 number soo geliya. 3daas number waxaa fiirinaysaa midka ugu yar 3daas number. okay, flow chartka adiga dhowr mar baan samaynay, marka isku day adiga inaad samayso, laakiin ani waxaan u boodayaa on fiirinaya algorithmka. step 1 maxaa mar walba aan sameynaynay waa inaad systemka inputkiisa aad samayso ood userka 3 number weydiiso. 3dii number buu soo gelinaya userka. step 2 marka maxaad samaynaysaa 3dii number inaad ku samayso isbarbardhig. waa 3 number. 2 number hadday ahaan lahaayeen way fududaan lahaayeen, laakiin waa 3 number oo la rabo marka hore numberka koowaad inaad fiiriso inuu numberka labaad ka yaryahay, haddana numberka labaad inuu ka yaryahay numberka saddexaad. ama aad fiiriso numberka koowaad inuu ka yaryahay numberka labaad, ama numberka koowaad ka yaryahay numberka saddexaad. inta badan programintu waxay u baahan tahay maskax iyo caqli. ani hadda sida aan kugu samaynayo ama aan u samaynayo waa si aan rabo inaan kugu tuso nested if statement ama if statementyada isdhexgalgalasay u samaysan yihiin keliya. maha si ka fudud oo short ah oo ama gaabana waad u samayn kartaa. step 2 maxaad rabtaa inaad samayso? sidanaad if statementiga u build garaynaysaa ama aad u dhisaysaa. waxaad leedahay if numberka koowaad haddii uu ka yaryahay numberka labaad, maxaan samaynayaa haddana if statement kale sii dhexgelinaysaa iftii kore. markaas waxaan leeyahay if number 1 hadduu ka yaryahay number 3, minimumkii ama numberka ugu yar wuxuu noqonayaa number 1. sida logiga ama sida macquulka waa sax, leanna hadduuba ka yaraada number 2 haddana uu ka yaraada number 3, wax soo haray male, waa isaga numberka ugu yar. markaas waxaan leeyahay anoonan u gudbin outsideka iftii kore, anoonan u gudbin baan ifta gudaha ku jirto else leeyahay. markaas waxaan leeyahay minimum wuxuu la mid yahay number 3. number 3 hadduuna la mid noqonin number 1, fiiri numberkii uu userka soo geliyay 3dii number soo geliyay waxaan kowdii hore tijaabiyey inuu ka yaryahay kan hore oo if statementida koraan ku fiiriyey. markaasa maadaamay 3 number yihiin, haddaynan 2 number keliya aan lahayn just else inta dhahaan tartiib iska soo birtir garayn lahaa wuxuu yahay minimumka. laakiin maadaama ay 3 number yihiin, haddana if statement kalaan gudaha ku qoray waxaan ihi numberka koowaad hadduu ka yaryahay numberka saddexaad, minimumka waa isaga. haddii kale minimumka waa number 3. waa inta loo dhihi waayey number 2. waxaa loo dhihi waayey number 2 labada hadda aan comparationka ama isbarbardhiga aan if statementidan gudaha aan ku bandhigayo waa number 1 iyo number 3. soo ma jeed? marka ma dhihi karin number 3 number 2. laakiin elsidan banaanka fiir ayada waxaan samaynay elsidan banaanka waxaa leeyahay if number 2 hadduu ka yaraado number 3, if statementidan dhan waxaan kusoo xiray oon hawsheeda kusoo dhameeyey number 1. markaas haddana waxaan isu barbardhigaya number 2 iyo number 3. waxaan leeyahay hadduu number 2 ka yaraado number 3, waxaan leeyahay minimumka wuxuu la mid yahay marka number 2. haddii kale minimumka wuxuu la mid yahay number 3. marka adiga ayi formkii aad istiraahdo waad u qoran kartaa, waad ka soo yarayn kartaa. intaan maba loo baahnaba intaanoo dhan inaad ku qorto kood hadda qor, laakiin markaad fahmaysa if statementyada say u shaqayso iyo markaasoo kale waad u baahan tahay sidaanoo kale inaad u fahanto. si markii barnaamij weyn aad samaynayso aad u isticmaasho, waad u baahanaysaa efiyo badan oo isdhexgala markaad samaynayso koodadka waaweyn ama waxyaabaha waaweyn aad programinayso sida websiteyadoo kale. marka hadda waxaan sameeyey general aniga if statement kore iyo elsigeedi, laakiin if statementyada mid walba waxaan sii dhexgeliyey haddana if statement kale waan sii dhexgeliyey si aan markaa u kala soco 3 number. akhiiran marka maxaan step 3 aan soo printer garaynaya
minimum value. marka ma u baahnid yani sideedaba algorithmka waxay best ku tahay waxay tahay markaad algorithmka ka shaqaysid ay code ay languageka rabtid baad ku qoran kartaa ay languageki lagaa dalbado ama adiga kuu fiican baad ku qoran kartaa markaas waxaan isku dayanaa marka inaan code ka qorno sidii oo kale waxaan isticmaalaynaa classkii magacaan ka bedelaynaa kan waxaan leenahay nested an create garaynayaa ama samaynayaa methodkii waxaan leeyahay static void nested if sidii oo kale system waxaan qorayaa message aan u qoro wadadii oo dhan intii aan maraynaa saddexdii number sidii oo kale waxaan isticmaalaynaa scanner waxaan bixinaynaa input markaan bal mar kale magac kalean isticmaala scanner saad u fahanto equal marka saddexdii numberaan rabaa marka inaan geliyo saddexda number waxaan ka dhigayaa integer waxaan leeyahay integer sidii oo kale waxaan samaynayaa iyadana num1 wuxuu la mid yahay scanner waa objectigii aan create gareeyey next integer iska soo koobiyeysta 2 and 3 waad samayn kartaa inaa mid walba scanner tirada laakiin formulahan ugu nadiifsan oo ugu roon markuu userkii soo geliyay saddexdii number aniga maxaa laga rabaa inaan sameeyo as a programmer waxaa laga rabaa inaan fiiriyo saddexdaa number midka ugu yar sida algorithmkii qornayd ay ii sheegaysa si aan marka u ogaado waxaan rabaa inaan isticmaalo if statement waxaan leeyahay marka if numberka koowaad hadduu ka yaraado numberka labaad waxaan leeyahay maxaad samaysaa tan samee if haddana condition kale haddana sameeye statement kale waxaan leeyahay haddii num1 oo ka yaraada num3 maxaa marka meeshan soo baxaya waxaan rabaa inaan sheega minimumki hadda minimumkan marka waxaan leeyahay hadda fiiri markaad fiiriso number1 hadduu ka yaraada number2 uuna ka yaraada number3 maxaa soo haray isagaa ah minimumki soomaasaa ugu yar marka waxaan leeyahay min waxay la mid tahay num1 waxay la mid tahay num1 meesha minimumka waxaa ku qoran somada cannot resolve leanna ma tacriifinin waa inaan tacriifiyo marka waxaan leeyahay min marka maxaan sameeyey minimumkii wuxuu la mid yahan iray numberka koowaad haddayna saas noqon else dad hadda iska qiyaasto waad garan kartaa midka uu yahay minimumka min wuxuu la mid yahay markaas num3 wax kaloo noqonaya jira hadduusan la mid ahayn number1 ani waxaan gudahaana ku jira korkan banaanka weli uma bixin if statementida kore uma bixin isbarbardhigeeda waxaan ku jiraa weli tan gudaha maxaa yidhi hadduu minimumka computerka wuxuu fiirinayaa numberka koowaad hadduu ka yaryahay 2 kadib hoos uu soo degaya haddana wuxuu fiirinayaa numberka koowaad hadduu ka yaryahay numberka saddexaad markaas wuxuu leeyahay numberka koowaad isaga ah minimumka hadduusan noqonin maadaamaan ani weli statementkii gudaha aan ku jiro wuxuu dhahayaa marka wuxuu fiirinayaa haddana elsidan markaas wuxuu leeyahay minimumka ma la mid yahay number 3 hadduu la mid yahay wuxuu leeyahay minimumka waa number 3 haddaysan intaasoo dhan midna noqonin maxaa dhacaya waxay noqonaysaa marka else taana haddana waxaan dhex gelinayaa if statement waxaan leeyahay if num2 hadday ka yar tahay num3 ani tan kore waxaan kusoo isbarbar dhigay number 1 inay ka yar tahay number 2 maxaa ii haray marka hadda waxaa ii haray number 2 inay ka yar tahay inaan ogaado number 3
hadday ka yartahay maxaan leeyahay minka wuxuu noqonayaa marka uu la mid yahay number two. Sorry. markuu guduud ka dhigayo waxay ka mid tahay lama isticmaalin, weli maada isticmaalin numberkaas. Okay, waxaan leeyahay two. Okay, else haddaynan uusan noqonin minimumka muxuu la mid yahay bal hadda dad qiyaasta waa garan kartaa. aniga intii maxaa barbar dhigaya wax isbarbar dhigaya two iyo number three. twoga hadduu ka yaraado waa asaga ah, hadduusan ka yaraanin ayaa ah two baa weyn. number two hadduu ka yaraado number three macnaheedu waxay tahay minimumka waa number two. hadduu marka number threega uu ka yaraado number twoga laakiin muxuu noqonayaa minimumkii number three. saad rabtaad adiga u qoran kartaa. aniga hadda inta waxaan kugu tusinayaa saan sheegay if statement say isu hoos gasho, laakiin adiga waxaad samayn kartaa easy way oo ka fudud sidan. Okay, waxaad isku daydaa adi naftarkaaga inaad samayso si ka fudud oo mar walbana markii code la sameynayo waxaa la fiiriyaa timeka uu qaato iyo spaceka uu qaato, memoriga uu ka qaadanayo. markaad code tiro badan qorto aadna qorto if yaala badan isdabagelaya ama luubo badan isdabagelaya, computerka waxay ku qaadanaysaa waqti inuu soo saaro natiijadii. Okay, bal aan fiirino aan xisaabino rangareyno wuxuu sameeyo. aan fiirino number one waa 1 2 3. Okay, waxaan u baahannahay marka haddaan saan ku rangareeyo haba iima soo saarahay saad meeshan ka aragto. marka wuxuu u baahan yahay inaan methodkan aan ku dhex qoro main methodka aan ku tacriifiyo. haddaan samayn waayo wax ii shaqaynayo male. Okay, waxaan leeyahay marka nested if statement. Okay, haddaan rangareeyo saddexdii number maxaa waaye waa 1 2 and 3. hadda markaad fiiriso minimum numberku waa 1 sooma, waa inuu 1 noo sheego. oh yes, waxaan ka tegay ma garanaysaa, waxaan ka tegay inaan hadda algorithmka haddaan gadaal ugu laabto waxaa liiga baahan yahay step 3 oo ah print minimum value. waa inaad soo saarto oo printer garayso numberka ugu yaraa. marka taasaan ka maqan meesha. waxaan leeyahay marka anoo ka baxaya if statementyada waxaan leeyahay marka system dot print min. hadda min marka kalarkii way isu wada bedelaya soo maaragt, wuxuu wada noqonaya caddaan. markii hore muxuu ahaa guduud intaanan isticmaalin, micnaheedu waxaa waaye maadan isticmaalin, meelna lagama isticmaal markaad aragto guduud isagoo ah. marka hadda min waa inuu soo daabaco rangaree 1 2 and 3 number 1 soo mujid. hadda message waa kusii qori kartaa, waxaad dhihi kartaa waxaan leeyahay numberka ugu yar numberka ugu yar waa san sheegnay. markaad rabtid inaad message ama qoraal iyo isku dartid natiijo ama variable waa inaad isticmaasho calaamadaas balaaska concatenate saasay ku magacaabaan ama la dhahaa. okay, waxaan leeyahay 1 2 and 3. the smallest ama the minimum number is 1. markaas numberka ugu yar waa 1. okay, tusaale kale haddana 10 25 2 36. okay, numberka ugu yar waa 2. last tusaale number weyna waxaan leeyahay 100 250 85 60. numberka ugu yar waa 100. okay, maanta insha allahu intaasaan ku joojinayaa wixii darsiyadan ku saabsan. waxaad isku daydaa inaad adiga mar walba ku celceliso inaad adiga your own way u qorto ama wadadaada adiga khaaska ku ah si aad u soo saarto wax macquula. mar walbood more practice garayso ama koodka aad mar walba qorto waa mar walba ood fahanto sida
aad u qori karto wax walba oo programming ama koodad badan ku saabsan. mar walba waxaa muhiima practicada ama inaad mar walba joogtayso. weliba waxaa laysku dayaa inaad luuqado kala duwan ku qorto. mar walba waxaa laysku dayaa inaad luuqada kale ee ka fudud aad raadiso ood ayadana isku dayda inaad barato. darsigan maanta insha allah intaasaan ku joojinaynaa. waxaana rabaa inaan kan isla nafsi tusaalayaashan oo Python ku qoran inaan ayagana insha allah videoyadeeda soo geliyo sida ugu dhaqsiyaha badan. aadaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.